ها waa sheegtay qalcadihii oo dhan waa la wada dumiyey dabcan tan oo kale magaranaysa ay inta kaliya maaha kuwaad wada sheegtay oo dhan iyo sidan oo kale ayaa loo dumiyey yani tan waxaan isticmaalay tusaale oo kale labada kaliya maaha dee wixii oo dhan waa la wada dumiyey dabcan taleex waad aragtay marka la qabto iyadoo damage gaadhay ayaa magaranaysa miinooyin lagu soo xidhayay badanka qalcadaha waxaa la qabanayay iyagoo damage fara badan gaadhay kadibna miinooyin baa lagu sii damaysiinayay sida tan oo taleex sidoo kale kuwii sanaag ay ka mid ahay qalcaddii shimbirbeeris طبعا halkan waxa weeye damage baa gaadhay markii ciidamada daraawista laga saari kari waayey kadib markii loogu tagay wixii lagu dili karanaya lagu dilay ayaa qalcadda ciidamada hindidii ee markaa singaha ee markaa madaxa duubta ay miinooyin geliyeen tusaale ahaan halkan waa madaafiicii lagu qaraacayay laakiinse marka la qabsado miinooyin baa la geliyaa markaa kadibna ciidamada magaranaysa ay ingiriiska ayaa markaa burburinayay iyagoo markaa diidaya inay daraawishtu dib ugu soo noqoto meeshaas sidaasi lamida magaranaysaay kuwii taleex oo adarkayso magaranaysaay qalcadii magaranaysa la dhihi jiray daar ilaalo oo iyadana la dumiyey oo labadan mutule ta ka dambaysa oo saad ka arkayso halkaa wata taagan qalcadan dheer daar ilaalo qalcadii miinooyin baa la geliyey marka waxaa hadhay labadii mutule keliya hadhay iyada keliya maaha tanna waxa weeye dayuuradii baa qaracday oo waxaa ku dhacay miinooyinkii yaraaye dayuuradda oo damage u gaadhsiiyey qalcadii falaad la dhihi jiray sayidku iska lahaa kuwa keliya maaha silsilad iyo taleex oo dhan waxaa la wadageliyey 2 bilood kadib marka taleex la qabsaday intii dayuuraduhu damage gareeya maaha intii kale ee magaranaysaay qalcadii taleex ee taagnaa waxaa la keenay miinooyin laga keenay wadanka Masar oo markaa berbere laga soo dejiyey 2 bilood kadib ayaa markaa miinooyin la geliyey siday ku qoran tahay buugga Douglas Jardine page-kan oo ku soo sheegi kara dad magaranaysaay rabto marka miinooyinkii markii la keenay berbere ayaa waxaa la keenay taleex kadibna miinooyinka ayaa lagu xidhay qalcadihii waaweynaa ee markaa daraawishtu ay lahayd xogtaasuna ku qoran tahay iyo xogo kale dheeraad ah dabcan markii loogu tagay laga qabsaday taalooyinka ama qalcadihii daraawishta waa kuwan iyadoo ciidamada ingiriis isku sawiraya marka way dhisnaayeen qaybo kamid ah badbaaday laakiinse ayaan daro intii dambe miinooyin bay geliyeen 2 bilood kadib markii la qabsaday taleex dabcan waa bishii April bishii la qabsaday taleexna February bay ahayd kuwan kaliya maahayna kuwan waad aragtaa qalcadihii markaa taagnaa ee markaa daraawish laga qabsaday waad aragtaa iyagoo markaa taagan qalcadahaas oo dhan miinooyin baa la wada geliyey oo marka waxay ahayd sida tan oo kale oo qalcadii silsilad xaggeeda dambe waa waxa weeye xaggan dhinacan dambe oo qalcadii silsilad marka kuwaas oo dhan dabcan waxaa la geliyey kaydkii raashinka meelihii ceelashii beertii waxaas oo dhan waxaa lagu xidhay magaranaysa miinooyin baa lagu xidhay sidaas leeg magaalada gobolka Sanaag magaalada Badhan qalcadii Badhan wax image kama hayo laakiin waxaan ayaa blueprintiga ay ka soo sameeyeen qalcadda Badhan halkan waa ceelkii ku dhex yaalay qalcadda Badhan dabcan qalcadan dhowr cisho ayaa siege lagu sameeyay marka ay haysteen ciidamada ingiriiska isku dayay inay galaan marka daraawishtii waa loo geli waayay qaybo kamid ah daraawishtii habeenkii bay ka baxeen nin kamid ah oo daraawishta intii ku dhimatay kamid ahaa wuxuu diiday inuu ka baxo marka xaggan ayuu u fadhiistay gaaladii marka way ka saari kari waayeen mid kamid ah marka ayaa xagga dambe uga soo dhacay qalcadda oo marka darwiishkii iyo ciidamada ingiriiska xagga hore ku jeeda ayuu dhabarka ka toogtay oo marka darwiishka loogu tagay arintaas marka ciidamada ingiriisku ay ku qireen geesnimada ninkaas haystay qalcadda Badhan sidaas leeg sadarkaas waxa weeye beerihii daraawishta ee gobolka Sool sidoo kale taleex oo marka iyagana la dumiyey qaybna dab la qabasiyay iyo dhirtii timirta ee lahayd daraawishtu dabcan beeraha lagu gubi jiray qalcadahana miinooyin baa lagu xidhi jiray sidaas leeg magaranaysaay qardho qalcadii ka dhisnayd magaranaysaay la dhihi jiray meeshii ceel la qoday qardho I think inay ku dhex taala mise duuleedka qardho ayaa ku taala waa qardho qalcadii loogu tagay markii ingiriisku qabsaday waad aragtaa taaladiisii uu ka samaystay kadibna miinooyin buu geliyey waxaad ka soo dhigan kartaa page-ka 206 oo jaamac Cumar Ciise sidoo kale isla qardho dabcan waa sawirkan ka helay marka markii la burburiyay miyaa tan ma kala hubo laakiin waa isla magaalada qardho oo marka qalcadii daraawishta kamid ahayd dabcan qalcadahan oo dhan marka ingiriiska ayaa miinooyin geliyey saad arkayso sidaas lamida labada qalcadood ee marka isu soo shabaha waxa weeye labada qalcadood mid ku taalo gobolka Nugaal dekada Eyl iyo sidoo kale gobolka Sool waa labada qalcadood ee aan miinooyinka la gelin inta aqoontayda aan hayo qalcadda marka ku taal Eyl oo xeebtii dekadii daraawishta ahayd iyo sidoo kale gobolka waxa noqonaysa gobolka Togdheer mise Sool qalcadda ku taala ee la dhaho Kirid
deegaanka kir la dhaho marka Burco laga soo tago dhinaca Sool la soo aado waxa weeye buurta dusheeda oo kale meel yaro turiga oo dusheeda oo istiraatiijiga waa qalcad ay daraawiishta ku lahayd dabcan xilligii dawladda Soomaaliya inay soo gaadhay waan filaya qalcadaas u taagan laakiin hadda tagto way wada dunsan tahay marka seeskii unba ka sii muuqda I think xilligii dawladda in dib loo dhisay oo wax lagu daray waan filaya ma kala huba laakiin xogtaana waan yara helay laakiin waa labada qalcadood kaliya intii daraawiishta aan aragnay ee ka taagnaa intii kale magaras way burbureen ama damage xun baa soo gaadhay haddaan labadaas sidoo kale ka tago waxaad aadaa dabcan kuwana waa kuwii la burburiyey bay ka mid ahayd haddaad aado ii sheegay qalcaddii ku taalay gobolka Sanaag sidoo kale Jiidali waa tan qalcaddii ku taalay Jiidali iyadana waxaa taalay sawir iyadoo dhisan waan hayay marka halkan waa iyadoo kor laga sawiray oo minooyinka ay rusheyntii dayuuradda ku socoto dabcan qalcadana waxaa loogu yimi iyadoo damage yar dhinaca deerka gaadhay laakiin marka dambe minooyin baa la qabasiiyay kadibna waxaa loo sii gudbay qalcadihii midhashi ku yaalo iyagana minooyin kale la qabasiiyay sidaas ilaa qalcaddii Galbeed Buur qalcadan waxaa lagu gumaaday rag fara badan oo daraawiish oo marka magaalada Maydh laga soo tago xoogaa dhinaca Ceerigaabo waqooyiga Ceerigaabo qalcadan sidoo kale dabcan rag badan oo daraawiish ayaa ku nafwaayay waxaad ka arki kartaa buugga uu qoray Douglas Jardine ka qoray daraawiishta dabcan maadaama xogayihii dawladda Ingiriiska uu ahaa dabcan dawladoodu u xaniyay laakiin waxa uu ku tilmaamay geesinimo loo waayay sida daraawiishta ay qalcadda ugu dagaalameen buugga uu kaga hadlayna waa buuggan Douglas Jardine xogta ku saabsan qalcaddan Galbeed Buur dabcan darwiishkii ugu dambeeyay ilaa uu ku dhintay qalcaddan Ingiriisku maysan qabsan daraawiishtii oo dhan way ku wada dhinteen oo marka geesinimada daraawiishta way ka yaabeen buuggaasi ku qeexayaan marka waxa weeye waa geesinimo loo waayay ayay ku qoreen geesinimana waxa ugu fiican cadawga ku qoro walow ay ka eexanayeen haddaan ka tago dabcan talax sida ahayd markii la qabsaday dabcan damage weyn baa soo gaadhay laakiin waa la badbaadin kar lahaa inkastoo marka Ingiriisku ay minooyin wada qabasiiyeen qalcadii oo dhan marka tusaale baan ku soo qaatay qalcadihii daraawiishta marka inta aynu xog rasmi ah ka haynay garanaysaa sida loo burburinayay Ingiriiskuna uu miinada u galnay dabcan miinada waxa uu galnay waxa ay daraawiishta inay ku soo noqon laakiin sidaas oo si leeg xogta ka dambeysay in miinooyinka lagu xidho qalcadaha daraawiishta waxay ahayd in ummadda laga indhatiro inay leeyihiin taariikh sidoo kale halganka ummaddu in la sii wado waa loo diidiyay marka waxa la leeyahay wixii sumad u noqon kara halganka Ingiriisku way la dagaalamayeen way burburinayeen waana sababta ka dambeysay in miinooyinka u isticmaalaan maxaad I hope inaan sharaxay insha Allah wixii kale aad ka leedahay hoos ku soo qor hadii rabbi idmo ma santahay